asalaamu calaykum waraxmatullah daawadayaal kusoo dhowaada wax kasto t v waxaa idinla hadlayo falseef maska jawharta dhala ama mas jawhaare aa sheekadeena maanta inuu xaqiiqo yahay in kale waan fiirin doonaa la soco muuqaalka. Sheekadan dhacdooyinkeeda waxay ka dhaceen magaalada aab la hayo ee Yemen ku taalo xagaagii sanadii 1953 halka uu fadhiyay atooraha sheekadeena habeen. Sheekh Xasaan Saalex Sufyaan wuxuu fadhiyay gurigiisa ku dhegan masaajidka tuulada. Gurigiisana waxa uu hordaarnaa dabkaas hoosaska uu wejigiisa ku sameynayo ayaa waxaa cabsi gelin jiray ilmaha ugu imaaday sheekada u dhageystaan. Ilmahaas aad ugu cabsadana waxa uu weynaa wiil ay walaashiis ay dhashay iyo 3 wiil oo kale oo asiga uu dhalay. Sheekha wuxuu lahaa cilmi aad u fara badan hadday noqoto fiqhiga, culumta diiniga, akhrinta quraanka kariimka ah iyo dadka salaada dujin jiray. Wuxuuna gubi jiray jinni iyo shayaadiinta kuwaas oo dadka aad u dhibay. Wuxuu ku akhrin jiray quraanka. Sheekha sidaas ayuu ahaa. Haween walbo dhaxani ay jirto wax yar iyo weyn waxaa lagu soo kulmi jiray dabkii sheekha u daarnaa si loo dhageysto sheekooyinkiisa xiisaha badnaa. Laakiin haweenka qisadan uu ka sheekeynayay dad badan ma joogin oo dhaxan daran ayaa jirtay. Sheekhina wuxuu bilaabay sheekadii maskii jawharta. Sheekhi wuxuu yiri habeenada ka mid ah ayaa waxaa laga wacay tuulooyinka inuu dhow. Tuuladaasi oo uu ku jirnaa wiilka ma hurdi karin, waxna ma cuni karin, waxna ma cabi karin. Dhaqaaqiina wuu gabay. Waxaase u sii dheeraa dhalanteed oo dadka u dhow ay ku sheegeen inay tahay mid laga cabsado. Dhalanteedkaas waxaa la socday erayo ay fahmi waayeen. Marka cabar dhageysanay erayadaas ayaa waxaa noo soo baxay inay erayadaas ka mid ahayn luqadda laatiiniga oo lagu labay luqadda cibriga ah. Marka aan maqalay labadaas luqadood ayaa waxaan xaqiiqsaday inuu wiilkan jinni hayo. Sheekhi ayaa wuxuu dhahay waxaan qaatay neef dheer kadibna hawsheedii ayaan dhammaystiray. Saacado yar kadib oo aan akhrinayay quraanka iyo ducooyin, wiilka xaaladiisa way fiicnaatay. waalidiintiisana waxay u abaalmariyeen 3 shilin oo dahab ah. Waan ka qaatay anigoo ka xishoonayo. Waxaan sharad ugu dhigay inaan uga tabaruco hay'adaha khayriga ah ama samafalka. Markaan bilaabay inaan isdiyaariyo oo aan tuuladeeda dhankeeda aado, dadka tuulada ayaa iga codsadeen inaan la baryo haweenkaas. Laakiinse waa ka diiday. Maqribkii ayaan dujiyay tuulada, kadibna waxaan soo aaday tuuladeena oo u jirtay 5 kiiloomitir. Kadib nus saac oo socod ah anuu ku celcelinayo ducooyinka iyo aayadaha quraanka korna u qaadayo ayaa lugteeda waxaa ku dhagay wax u muuqday inay ahaayeen biro culus. Markii loo fiiriyo mugdiga daran ee jiray, lugteedii waan soo jiiday. waxaana la imid goob iftiin leh ama cadlo leh. saan u arko waxa ay yihiin. Sheekh Xasaan wax yar ayuu aamusay, kadibna wuu dhammaystiray sheekada. Wuxuu ahaa masweyni badan kaasi oo laqay haaf ka mid ah lugteeda. Dhirirkiisa kama yareen 1 mitir iyo bar. kalarkiisa wuxuu ahaa dahabi. indhihiisana waxay ahaayeen buluug oo ka muuqdo nacayb. Weligay ma iloobi doono qaabdarada arrintaas iyo la yaabka xaaladaas. anigoo garan la waxa aan sameeyo oo tayda ii haysato
ayaan waxaa maqlay codad kaloo juqda ka yeeraayo. Markaan gadaal u soo jeestay, waa musiibo kaloo soo baxday. Tanaa tii ka sii daran. Gadaasheeda waxaa joogay mas kale, kaasoo u ekaa wax taagan. kalarkiisu wuxuu ahaa madow daran ama uul. Tinta madaxiisa aad ayay u badneed, wuxuuna lahaa 2 geesood. 2 gees dhexdooda waxaa u saarnaa jawharad yar, taasoo dhaldhalaalkeeda indhaha ay soo jeedanayeen, meesha dhanna iftiiminaysay. Sheekh Xasan wuxuu ku daray, noocan masaska ah waxaa ka sheekeeyey awowayaalkeeda, waxayna noqotay sheekadiisa manaawaaliyo dad badan ay inkiraadho. laakiinse waa xaqiiqo. jawharadda madaxiisa kor saaranna waxay bilowdaa koriinka markii la dhalo maskaas, waana qaali. wax la mid ahna ma jiraano. jawharadda keliya waxaa qaada ama ay dul saaran tahay labka. waxaana ii muuqday maskii dahabiga ahaa inuu ahaa midda dhidigda ah, kana uu yahay labkii oo u soo baxay maadaama aan ku istaagay naagtiisii oo isku dayday lugteeda inay laqdo. noocan masaska ka mid ah suntiisa aad ayay u daran tahay. wuxuu kaloo leeyahay awood aad u halis badan. wuxuu awoodaa inuu maskaxda dadka koontaroolo oo uu qofka dhaqaaqa gabo daqiiqado yar, inta uusan ku soo boodin oo uu ku durin suntiisa aan nolosha dhulka lala dhicin. laakiinse haweenkaas nasiibka ayaa aad ii caawiyey. mugdiga ayaan ugu badbaaday maskaxdeeda in la koontaroolo. waxaan soo baxsaday qorigeygii, madaxa ayaana ka qarxiyey. waxaana soo baxsaday midideeda, gacalisadiisana qoorta ayaan ka gooyey. waxaan kor imid meydkii odayga. waxaan soo qaatay jawharaddii, jeebkaa ku ritay, kadibna meesha orod ayaan ugu soo baxay. waxaan rucleeyaba. saacad kadib waxaan imaaday tuuladaydii. maalinkii xigay markii laga soo baxay salaadii jimcada, tuuladoo dhan waxaa ku dhex faafay sheekadii maskii jawharta. waxaana noqday mid dadka ay hadal hayaadho. wakhtigaas qof walba wuxuu u weydiinayay jawharadda siday u eg tahay, intee la eg tahay, iyo kalarkeeda muxuu yahay. laakiin jawharta waxay leedahay sheeko kaloo iyada u gooni ah. waxaan idinkaaga sheekeyn doonaa haween kale hadduu ilaahay uu idmo. waad mahadsan tahay daawade haddaad intaan soo gaartay. aad ayaan kugu faraxsannahay inaana daawato. hanaga iloobi like-ta, kanaalkana subscribe inaanoo dhahdo. waxaan rabnaa inaan gaarno 1000 subscriber haddii uu ilaahay idmo. asxaabtaadana la wadaag janaalka. haddaad hore u maqashay mas jawharana, commentiska noogu soo qor. waadna mahadsan tahay daawade mar labaad iyo mar saddexaad.